taliyaha CID-ga asaa afkiisa ku dhahay anigoo meesha taagan haddaad sheegabaysa lacagtan inaad haysid ogow koronto inaan kugu qabanayo wad ogtahay anaga si inaan wax yeelo meesha lagu geynayna wad ogtahay anigoo taagan oo dhahay taas cunugayga lacagta lagu haysto oo lagu sheegtay waa 80,000 oo dollar afkiisa ku dhahay anigoo meesha taagan haddaad sheegabaysa lacagtan inaad haysid ogow koronto inaan kugu qabanayo wad ogtahay anaga si inaan wax yeelo meesha lagu geynayna wad ogtahay anigoo taagan oo dhahay taas Axmed Maxamed Ibrahim waa 12 jirka sheekadan ay qusayso cunugayga lacagta lagu haysto oo lagu sheegtay waa 80,000 oo dollar waxaa la sheegay inuu ku xiran yahay xarun CID-da ay ku leedahay degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir hooyadiis oo lagu magacaabo Safiya Maxamed Nuur ayaa inoo sheegtay in wiilkeeda uu xiran yahay muddo ku siman 2 bilood sheekadan ayaa la xiriirtay kiis lacageed oo lagu soo oogay wiilkeeda Axmed wiilkayga waa cunug 12 jir ah saxaab markay ahayd 18 bishii 7 waxaa lagu soo oogay kiis lacag oo inuu qaati ah maamadaasna waa maamo xaafad degan lacagtaasna waxaan aniga arkay xilli 2 saac amal ah cunugayga nambarkiisa lacag $80 ah $80 markaan daba kacay wiilkii nambarkiisa aan raadiyay aan gurigiis ugu tagay wuxuu ii sheegay lacagtaas inaa laga soo qaatay aydiis Axmed ayaa caawini jiray haweeney ay daris ahaayeen waana qofka kiiska lacageed ku soo oogay hooyada dhashay Axmed waan ku booqanay hoygeeda oo ku yaala degmada Waaberi ee gobolka Banaadir ayaa inoo sheegtay in wiilkeeda loo haysto lacag uusan shaqo ku lahayn oo ay lunsatay gabar ay dhashay haweeneyda kiiska ku soo oogtay wiilkeeda sida ay sheegtay Safiyo ayaa ku doodaysa in la masabidanayo wiilkeeda haddaba wiilka 12 jirka ee Axmed lagu magacaabo sidee ayuu ku soo galay kiiskan Safiyo ayaa inoo sheegtay in gabar ay dhashay haweeneyda kiiska ku soo oogtay wiilkeeda ay ku amartay Axmed inuu u soo saaro bac si ay uga baarato baasaboor ay lahayd oo hooyadu ka xareysay kadib sidee wax isu bedeleen wuu adeegi jiray oo gurigooda la joogi jiray cunugayga anigoo aan rabin ay adeeg u soo dirsi jireen anigana waxaan dhihi jiray waa darisay iska daa wuu u kaalmeeyay jiray maadaama habar waayeel ay tahay aan iska daa ha iskaaga adeegay ha iskaaga kaalmeeyay cunugan waxay suurtagal ku noqotay gabadhaas oo duqda ay dhashay oo hadeertaan baxday oo maqan waxay tiri bacda ayay ku dhiibtay ii soo bixi waxaan ka fiirinaa baasaboorkeygii bacdi waa la soo bixiyay bacdi ma ogeen inay lacag ku jirto cid ogeed ma lahan bacdi markaa loo keenay oo bacdi ay kala fureen waxay noqotay lacag kadib lacagtii gabadhii wayba la kacdaybo way qaadatay wiilkiina wax bay ka siisay cunugayga waxaa loo soo tuuray lacag $80 oo hadeertaan macal lafti macal nambarki macal mobilki intaba aniga saldhigaan geeyay oo CID-dan waa la sii geeyay ilaa hadeertaan mobiladaas oo dhan waxay jiraan CID ay jiraan mobilka waxaa u soo gaday duqda gabadha ay dhashay oo hadeertaan lacagta qaadatay ayadaa u gaday laf iyo macal mobil tagna ah ay u soo gaday lacagtana oo taleefankaas lagu soo shubayna wiilkeeda ku soo shubay soo siiyay marka anaga wax lacag aan ka haysana malahan Asma Cabdulqaadir waxa ay ka hadlaysaa waxa ay kala socoto kiiskan wiilka 12 jirka duqda oo lacagta laga soo qaaday uu adeegi jiray asoo yar oo waxa la lahaayay waxbay u dirsan jireen hataa gabdhaheedii oo dibadda jiraan hataa way adeegsi jireen dad oo macnaha oo daris oo isku fiican camalaan ahayn marka hooyadiisa marka way ka reewaysa meesha marka waxay tiri waa iskaga dhaaftay bas maxaa la lahaayay duqda markaasay wiil oo iyada dhashay iyo maxaa la lahaayay wiil ayay u tahay iyo gabadheeda maxaa la lahaayay lacag oo waxa ku nabeen oo $80,000 oo dollar ah bas $80,000 na gabar oo iyada dhashay oo Baarliin la dhahaayo
lacagtii cunugaaseeti maxaa la dhahaye meesha baasaboor ugu dirsatay asagana maxaa la lacagta waxay ku jirtay bacdaaseeti oo meesha la gelinaayo wiilka way arkayay tiri markaa meesha gelinayay wiilkaasna maxaa la dhahaye lacagtii baarliina u dirsatay waxay tiri meeshaaseeti baasaboora iiga jira iiga soo bixi baasabooradii meeshii laga soo bixi lahaa bacdi dhanaa la soo qaaday bacdiyaa gacanta laga saaray waxaa isla ogaayeen wiilka hanad la leeyahay iyo gabarta baarliin la leeyahay labadaasaa isla ogaayeen cunugaanna waxba kama ogeen waa loo dirsaday lacagta. cabdilfataax maxamed xaaji oo sheekada la socday ayaa dhankiisa ka hadlay waxa uu ka ogyahay kiiskan cunuga 12 jirka ah oo loo haysto $80,000 oo xogtiisii hore loo baxshay in hadii alla ku ay sheeg hay'adaha garsoorka in nagala hadlaan oo si degdeg ah noogu soo jawaabaan because of cunug 12 jir ah oo xiran anaga hadda cunugeena afduuba loo haystaa sababtoo ah sharcigu ma qabo 48 saac ka badan in qof uu CID ku xirnaado waa wax la yaab leh waa waxyaabaha oo aan hore u dhicin aan dhihi karno sababtoo cunuga 12 jir waaye. hooyo Safiyo ayaa dalbanaysa in cadaalad ay u hesho wiilkeeda. lacagta aniga ma haysani lacagta aniga cunugeyga lacag kama haysto cunugeyga dulmacad ay ku haystaan aniga waxaan rabaa cunugeyga inaa sharciga la keeno inaa maxkamadda la soo saaro oo dambiga asiga oo leeyahay oo lagu qaado cunugeyga wax dambi ee ma lahan aniga wax cidaan aan ka haysana ma lahan aniga waxaan u baahanahay cunugeyga inaa banaanka lay keeno cunugeyga wax uu ka haasta male cunugeyga waa cunug 12 jir oo iiga ilmaheeda ay adeejisteen oo hadina lacagtii ilmaheeda ay u qaateen oo cunugeyga ay ku haysato oo rabto cunugeyga lacagtoo dhan inay korka ay ka soo saarto lacagta waxay u baahan tahay cunugeyga korka inay ka saarto oo tiraaxo lacagtan cunugaana iga qabo waxay rabtaa ilmaheeda waxaan rabaa madaxweynaha wasiiradaha xildhibaanada intaba hay'adaha samafalka hay'adaha xaqul insaanka cunugeyga inaa banaanka lay keeno waxaan u baahanahay inaan cadaalad aan helo waxaan u baahanahay cunugeyga cadaalad inaan u helo cunugeyga 2 bilood oo xiran yahay ilaa hadeertaan wax aniga aan ka haayo ma lahan maalin walbana cunugeyga wuxuu u dhahaa hooyo meeshaan iga bixi waa leegu dilaa isku dayo aan ku sameynay in aan kula xiriirno qofka uu u xiran yahay wiilkan 12 jirka aysan inoo suuragelin saraakiil ka tirsan booliska gobolka Banaadir oo aan la xiriirnay ayaan weydiinay kiiskan waana ay ka gaabsadeen waxaan kaloo weydiinay suurtagalnimada in la xiri karo qof aan qaan gaarin waxay inoo sheegeen in la xiri karo qof kasta oo dambi lagu soo ogo hase ahaatee dadka aan qaangaarka ahayn kiisaskooda uu si toos ah u hoostegayo maxkamadda sharciga u leh ehelka qayb ka mid ah ayaa tagay maxkamadda iyaga oo la kulmay xeer ilaalinta waxaana ay sheegeen in loo xaqiijiyay in wiilka 12 jirka kaliya uusan xirneen balse kiiskan ay ku eedeysan yihiin 3